waxgarad dhalinyaro iyo aqoon-yahan ka soo jeeda gobolada togdheer saaxil saraar iyo sanaag oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada burco ayaa sheegay in qaabkii maxkamadda magaalada hargeysa u xukuntay boqor cismaan buurmadoow ahaa qaab sharci darro ah iyagoo ku baaqay in xorriyaddiisii loo soo celiyo boqor cismaan buurmadoow si gaarana madaxweynaha somalilan waxay u xasuusiyeen xilliyadii ololaha inuu ballan qaaday in cadaaladda dalka wax weyn laga qaban doono way qof baa wax iska yiri mal cid ku qancinay saldhigiisa dadka laga dhaafay la maxkamadda kaalay war kay xabsiga geeya ma sharci aynu ku dhaqano mid adduunyada ku dhaqanto midna garsoorkuna hadii garsoorkeenu ka yahay halkii koolay sagaashii baa muddo inaan ku socdo taan waxa leeyahay garsoorka dadku waa wadaaqooyan sharciga oo yaqaana war sharci aynu u simanahay oo ina xukumayna dhaqa ma adeekan midda kale waxaan la hadlayaa guddida cadaaladda haddii aan garsoorihii dhawaaqaasi ka soo yeedhay aan sharciga la hor keenin waxa weeye dhibaato ka weyn baa dhacaysa annaguna haddaanu nahay dhalinyarada beesha bariga burco ama gobolka sanaag ama gobolka sool waxaanu dhammaan aanu caddaynaynaa in aanay xukuumadda aanay sidaa ku sii taagnaanin haddii aan xariga boqor cismaan oo maxamuud maxamed aan laga sii deyn xariga waxaan leeyahay xariga buurmadoow lagula kacay waa xaaraan maqdaca weeye ma qabato madax dhaqameedka hadduu galbeed yahay iyo hadduu bari yahay iyo hadduu koonfur yahay iyo hadduu waqooyi yahay midna ma qabato madax dhaqameed in lagula kaco falalka noocaas oo kale ah muusoow waxa weeye hadda waad ku jirtaa ha isbarabixin haddii cadaalad baynu ku dhisnayna cadaaladii waxba laga garan waayo waxa weeye ninka ay ka daadanayso waxa weeyaan aday ku jirtaa nin hulaab xumo inuu wax qarsanayaabaa la moodaa waxa weeyaan sifaha loo xidhay buurmadoow anigu waxaan u arkaa inay kulmiyaysan tahay xaqiiqa inay kulmiyaysan tahay baan u arkaa boqorka waa lagu khaldamay nidaamkii loo xukumay boqorka sidaad la wada socotaan qofkii waxa weeye dhageystay ama ogaa wuxuu ahaa nidaam sharci darro ah oo aan geedka la isugu soo toosin runtii waxaana looga muuqday aarsi mana dhacayso in waxa weeye dadka qaar la raali geliyo dadka qaar waxa weeye boqortooyadooda lagu tacadiyo ma suurtagelayso waxaanu leenahay madaxweyne waddanka adiga ka mas'uula sharcigii waxa weeye adiga waxa weeye ku hoos imanaya dadka inaad hoos u eegto sharciga aad hoos u eegto dalka waxa weeye nidaamka ka socda aad hoos la socotaa loo baahan yahay ma ahayn waxa weeye shakhsi gaara la eegto waddanka sharci darradaasi haddii ay ka sii socoto cid u dul qaadanaysaa ma jirto waxaan leeyahay waxaa tahay ku odhan maayee waxaanu kugu maamaahaynaa linkii u kariyey bishaaliidda doqoneed madaxweyne ha noqonin taas ayaan ku leenahay waxa weeye waxa maanta u lagu tijaabiyey raggii dalka kan dhiigooda u soo shubay waxaa aqoon-yahana meesha soo fadhiya waxa weeye agoomihii aabbayaashood ku dhinteen iyo kuwii adeeradood ku dhinteen iyo kuwii ilma adeeradood ku dhinteen muuse maanta waxaan u malaya wuxuu leeyahay keligay baa mujaahida laakiin raggaas waxay wax ku soo barteen hafraa waxa weeye la soo kifaaxay waxa weeye waa agoomo waxa weeye raggii aabbayaashoodna waa raggii aad kaga soo tallaabtay webiga si aad kursiga madaxweyne u gaadho madaxweyne waxaanu kuu soo jeedinaynaa oo aanu kuu sheegaynaa aanu kuu caddaynaynaa waxa weeye maanta hadday fool timaado guda qarsimo yaallo waxaan waxa laga qabto garsoorahana xilka laga qaado maxkamadna la soo taageerto waqtiga badan marka waxaan leeyahay garsoorahaas waa in shaqo joojin lagu sameeyaa awalba cadaaladeen in fara badan baa laga cabanayay oo dadka masaakiinta ah ma garanaysa markii hore lagu tuman jiray oo ninka jeebkiisu ma garanaysa qoyan yahay ay wax loo xukumi jiray iminkana boqorradii iyo dadkii ma garanaysa sandaladala haddii lagu daray waxaan u arkaa arrintaas arrin aan u faacinin marka waxaan leeyahay muuse madaxweyne waxaad ku horleyn jirtay cadaaladda sareyn doonta maantana adigoo wax yar joogay xafiiskii ayay durbataas muuqataa iyo qaar kale fara badanba marka waxaan leeyahay haddaan nahay beesha bariga burco iyo gobolada ma garanaysa jamhuuriyadda Soomaaliland ee waaweyn intooda badanba ama lafdhabartii xisbiga kulmiyaba arrinta haddii maanta wax laga qaban waayo wixii ma garanaysa ka yimaada muuse biixow adduun baa ka masuulaan leeyahay madaxweyne madax meel ka sareyso la taabtaa ma jirto adiga dalka xukuma adiga Soomaaliland madaxweyne
waxa weeye madaxweyne inaad si bilu shuruuda ku soo dayso Cismaan Buurmadoow. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.